halkan aan ku wareysanayna shacabka Soomaaliyeed oo ku nool xaafadda Riinkabi waxa aan wareysanayna waxa waaye ma loo baahan yahay Soomaali inay is cafiso sideena loogu baahan yahay inay isku cafiso waa su'aalaheena halkan hadda waxaan wareysanayna Ali Sheekh Cismaan aan wareysanayna waxa la yiraahdaa aniga Ali Sheekh Cismaan degan Sweden qaasatan Stockholm xaafadda Riinkabi waxaa maanta عفيس ummadda Soomaaliyeed iyo maalinta ay tahay maalinta cafiska adduunka sida dadku la socdaan 12 bilood maalin walba maalin bay ku xasuusantaa maanta oo taariikhdu tahay 28kii bishii June ama bishii lixaad 28keedii waxa weeye waa maalinta cafiska adduunka haddaba su'aasha gabadhu weydiido ah haddaan dib ugu noqdo ma loo baahan yahay cafis waa loo baahan yahay waxa u baahan bini aadanka dhan baa cafis u baahan qaasatan ummadda Soomaaliyeed muslimka ah ayaa waxay u baahan cafis inay iscafiyaan ku dadku wax kala tabanaya ama heer nooc walba ha ahaato in la iscafiyo anoo taa ka jawaabaya waxaan leeyahay waa loo baahan yahay sideen sirniyad ah oo rasmi ah oo loo hubo aan isku cafina hadda anaga Soomaaliya sidee u kala dhigi lahayd maxaan ka bilawnaa xageen ka bilawnaa sideen u bilawnaa ee kula tahay mahsanta walaal kulli waxa weeye sida anigu aan fikirkaygu leeyahay ayaan meesha ku darsanaya waxa laga yaabaa dadku inay kala fikir duwanaa karaan waxa loo bilaabi karaa masaajidka waa laga bilaabi karaa qoysku waa ka bilaabi kartaa meelaha mujtamacu isku yimaado waa ka bilaab ummadda Soomaaliyeed waliba qaasatan inay iscafiyaan oo isku calool furaan oo qofku hadduu qof wax ka tabtay oo calool furnaado waa mid loo baahan yahay taas ayaan u aaminsanahay in meel kasta oo bulshada Soomaaliyeed inta codkeeda maqlaysa sida ay la tahay malihi aayad quraan ma hadalkayo waxa laga yaabaa dad badan ay ra'yi duwanaan kara aniga waxay la tahay meelaha mujtamacu isku yimaadaan oo sida oo mujtamacu ku kulmo ummadda Soomaaliyeed in la isku cafi karo oo caloosha la isku feer karo waan ku mahadsantahay walaal waad mahadsan tahay inaan ra'yigaada dhageysano waa wax muhiim ah ra'yiyadan aruurinayna ma aha si kale maadaama uu gobolka Stockholm markii ugu horeysay hadda ay ka bilaabanayso horena ay Soomaaliya aga dhacday ra'yigan rabnaa inaan aruurino markaan aruurinane ra'yiga wixii ka soo baxo ayaan ku dhaqaaqi doonaa hadduu alla yiraahdo aad u mahadsan tahay warka u dambeeya aad dhahays ma jiro mise dad halkan ka salaamaysid Soomaali war u sheegaysid ku waanaysid rumahantii barnaamijka wadaan oo barnaamij aad u qiimo badan waxaan ka bilaabo suxufi Selwo oo nin qaali ah Beirut oo qof qaali ah oo soo noqotay xildhibaanad gobolka Stockholm ka soo noqotay Sweden qof didaal badan oo mujtamaca isku xiri jirtay ah labadiina ayaan idin mahad celinaya waxaan leeyahay ra'yiga ay wadaan qof walba la qaado waana ku mahadsantiin walaalayaal